kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinada dunida daawadayaashana qiimaha badan barakooyinka eebe iyo naxariistiisa weydushiina wato fadlan haddii marka u horeysana soo bawaad tahay sabskraib iyo leegta noo taabo mahadsanidin dagaalka baahan ee ka socda magaalada laascanood iyo nawaaxigeeda ayaa galay muddo bil ah taasoo dhibaatadii ugu badneed ay gaartay dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada laascanood duqeynta ayaa sii socota si weerarku sheegayaan magaalada laascanood ciidanka maamulka Somaliland ayaa weerar ku ekeeyay balse ciidamada jamhadda ayaa ka hortagay weerar afar jaha ay ku soo qaadeen magaalada gudaheeda madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wacd ku maray in la qabto magaalada sharaftii iyo karaamadii Somaliland ay burburto sidoo hadalka u dhigay hadii la qabo waayo magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool Somaliland ayaa sheegaysa muddo 30 sano qaran iyadoo horey u eeday jirtay dawladda hogaaminaya Maxamed Siyaad Barre inay duqeyn iyo dhibaato baahan ay ka geysatay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa u muuqata mid madax dhowla dhaca kadib markay dadka deegaankaas abaabul xooggan ay sameeyeen ka hortageen kuna jabiyeen dagaaladii ay ku soo qaaday magaalada Tukaraq ee xuduudda u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland ayaa goor sii horeyso shalay dagaal faraha lagu gubto oo ka dhacay halkaas ay isku farasaareen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo maamulka Puntland iyo Somaliland ayaa la sheegay inay dagaalkaas jilbaha dhulka loogu dhiftay kuna jabtay dagaalka dibna looga riixay Tukaraq dadka Tukaraq oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay inay dhibaato baahan ay ku hayeen maamulkaas SNM sidii hadalka u dhigeen waxay sheegeen inay dareemayaan rayn iyo farxad iyo inaysan la caburin aysan ku jirin sidii hadalka u dhigeen dadka deegaanka ku dhaqan ee Tukaraq Somaliland dagaaladii goor shalay ka dhacay Tukaraq iyo magaalada laascanood ayaa dad gaaraya 90 qof oo rayid iyo dadka dagaalamayaba ay ku dhinteen kuna naf waayeen dagaalada baahan ee ka sii socda gobolka Sool xaruntiisa magaalada laascanood dadkaas ayaa gaaraya tobanaan dad shacab inta kale la sheegayo inay yihiin dadka amba ciidamada wada dagaalamaya labada meeloodba ka soo jeeda dagaalka ayaa dadka ku dhaawacmay ayaa faraha ka sii baxaya tirada iyadoo ay gaarayaan boqolaal qof ay ku naf waayeen dagaalada ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool Somaliland ayaa inay xoog iyo awjajoog u adeegsata doonaysa dadka deegaanadaas ku dhaqan balse dadka deegaanada ayaa ka hor yimid nidaamkii Somaliland ee muddada 15 sano ay gacanta ku haysay magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool waxaa la arkayay siyaasiyiin sarsare ee ka tirsan magaalada laascanood ka soo jeedo ay ku sii qulqulayaan magaaladaas iyadoo ay Somaliland ay wadnaha farta uga hayso gelitaanka siyaasiyiin miisaan leh oo ka soo socda dhinaca koonfurta iyo magaalada Muqdisho oo u dambeeyay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar Somaliland ayaa wax kasto ay karaankeeda u adeegsanaysay sheegeen dadka deegaanka duqeyn baahan ay ku dhacayso isbitaalada iyo meelaha dadweynaha ay ku badan yihiin Somaliland ayaa arrintaas ganafka ku dhifatay sheegtana inay tahay wax been abuur ah aysan bartilmaameedsan doonin isbitaalada iyo meelaha ay dadka dadweynuhu ay ku dhaqan yihiin balse dadka deegaanka ayaa sheegaya inay madaafiic aan loo aaba yeelin ay ku soo hoobanayaan afarta garjahle ee magaalada taasoo ay Somalilandna ay tahay mid weerar xaqnimo ay ku wado dadkaas deegaanka doonaysana inay wixii ka haray magaalada laascanood ay burburiso ay agta mariso waxay ka digeen inaysan ku ekaa doonin xarunta laascanood ee gobolka Sool ay arrintu ay ahaa doonto mid sii faafta dadka deegaanku sidii hadalka u dhigeen madaxweynaha Somaliland ayaa u muuqda mid dunida iyo meel kasta ay ka soo xirantay dagaalka uu ku galay magaaladaas iyo dagaaladii ugu dambeeyay ay ciidanka Somaliland ay qasaare baahan ayaa ka soo gaaray la leeyahay dawladda Soomaaliya ayaa iyaduna isha ku hayso wax kasta oo dhaqdhaqaaq oo ka socda ayaa lagu yiray magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool
Somaliland wasiirka arrimaha dibadda oo hadlaya ayaa adduunka u sheegay in Somaliland aysan bartilmaameed u ahayn dadkeeda shacabka ayna dhowrayso dunidana uu sheegayo inaysan iyagu aysan yihiin kuwa fidnada ka wadaysan ahayn ay yihiin kuwo uu ku sifeeyay inay argagixisan yihiin taasoo ay marka dambana gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland oo warsan xaafadeed amba uu ka hadlayay warbaahinta gudaha magaalada Laascaanood oo ku sheegay in Somaliland wax kasta oo nabadda lagu dhisi karay ay xeragga ka jaraysay sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi nin doonayay inuu daadiyo dhiigga dadka xasuuq baahana u geysto dadka ku dhaqan oo isugu matalo ee ku dhaqan magaalada Laascaanood sida uu hadalka u dhigay gudoomiye Baashi ayaa isugu waraaqada qarsoodi u diray internationalka iyo qaramada midoobay sheegana inaysan ku sugnayn kooxo nabadiid ah deegaanadaas Laascaanood iyo nawaaxigeeda ay yihiin dadkii deegaanka ee kacay ay yihiin waxaa dagaalka baahan kula jira maamulka Somaliland taasoo ay arrin diblomaasiyadeed oo xun ay ku noqotay maamulka Hargeysa fadhiya oo kala jabay siday warku sheegayaan kadib markuu gudoomiyihii oo la saftay dadkii amba deegaan ahaan amba beeshiisaba siyaasiyiin ayaa u horeeyay Salmaan Cali Koore ayaa warbaahinta ka soo muuqday ayaa ku tilmaamay nin axmaq ah oo burburinta qaranka Somaliland sida hadalka u dhigeen oo qayb weyn oo ka yahay Somaliland ayaa u muuqata mid ay daaqadihii amba irdihii ay dunida ay ugu sheegi jirtay in la xasuuqay ay kasoo xirmayaan kadib markii la sheegay iyadoo inay awood xad dhaaf u adeegsatay dadka magaalada Laascaanood ee u jidbaysan in ay ku biiraan amba ay sidii hadalka u dhigeen ay hoostagi doonaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siday dadkaas deegaanku ay sheegayaan balse Somaliland ayaa arrintaas u naqatay mid aanan u cuntami karin haday baxaan heer soolna ay ku soo xigi karaan gobollo kale oo ka careysan nidaamka amba xukunka ay Muuse Biixi Cabdi iyo dadka ehelhaan ay dadkaas u tirinayaan inay iyagu isku koobeen xukunka Somaliland dadkaas ayaa u muuqatay in gobollo badan ku daysan karaan gobolka Sool aynaan ku dhawaaqi karaan inay ka mid yihiin midnimadii amba ay ka shaqayn doonaan midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya Somaliland ayaa muddo 30 sano ay tabi markay ugu dareed ay tahay xaaladuna ay ku cakiran tahay kadib markii jilbaha dhulka ugu dhifteen garaadada beesha dhulbaante oo ku dhawaaqay arrin ka dhan ah maamulka Somaliland ee xaruntiisu tahay Hargeysa daawadayaasha qiimaha badan warkayna intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa amaana Allah daawadayaal